السلام الله عليكم الصحابي كسو دوادا دكتور حاشي نتورك هالكات فيديو وان كداونيسين و دكتور حاشي نتورك فيسبوك بيجكا يوتيوب بيجكا يو تيك توك ميدكود واكم هاتسنتين سات فيديو دي لصو دافاي لايكتا iyo shareta iyo commentigina iyo how engage aad ahaydeen fideogii u dambeeyey marka laga reebo midkan waxbarashadii part 1 iyo part 2 3 4 uga hadlayay midka u dambeeyay waxaan idin kula wadaagay waxa la yiraahdo career options in Canada oo aan uga hadlay saddex option oo engineering la xiriirta pipeline engineering, chemical engineering iyo petroleum engineering. maanta waa ka duwan yahay fideoga yaroo gaaban waa dhinaca caafimaadkan usoo wareegaynaa maanta qaybo badan idin kamid waxaa laga yaabaa inaad ogtihiin Canada dhowrkii sano u dambeeyay waxaan u maleeyaa COVID-19 wixii ka dambeeyay MRI waa mashiinkan weyn oo dadka la geliyo oo nerfaha iyo damage-ka iyo lagu ogaado iyo spinal cord-ka iyo brain injury-ga lagu ogaado. Very sophisticated machine oo aad u weyn oo aad qaali u ah. Video balkaas aan iraade MRI-gaas technician-kiisa waxaa lagu baran jiray undergraduate muusan ahayn qofku markuu degree kala soo qaato postgraduate iyo master ku sameey jiray. 2020 aan jeclaa inay corona wixii ka dambeeyay waxaa loo bedelayba inaad 2 sano ku baran karto oo high school diploma hadda hay'adaha toos u gali karto. Hadda waa shaqooyinka loogu helitaanka badan yahay dhimaankoodu aad u waalan yahay waliba gobolkan Ontario in kala hadlayo almost isbitaal walba waxa waaye hadda website-yada gasho career option ama shaqooyinka ka banaan MRI waa ku jira isbitaalada intooda badan sidoo kale Vancouver iyo BC iyo joogto iyo Alberta iyo aad joogto aad loo raadiyaa dhimaankiisu aad u waalan yahay waa MRI technician qofka qaadaya tahay mashiinkaas dadka gelinaya lagu barayaa qaabka physics-ka ka dambeeya iyo waxyaalahaas lagu barayaa dhowr mar oo fiiriyay requirement-yada waxa kamid ah inaad grade 12 physics iyo biology iyo mathematics inaad haysato iyo waxyaalahaas. linkiga Facebook bahalkii waxaan idin kula wadaagi doonaa YouTube channel-kan idin kula wadaagi doonaa meesha comment section-ka markaad aragtiin qofka ugu soo horeeya commentiga ugu soo horeeya idin kula wadaagi doonaa oo arkaydin linkiyada. hadda intaan ogahay hadda GTA ama Toronto iyo gaarkeeda joogto hal college bixiya oo waa 2 year diploma way advanced diploma kadib waxa waaye license exam aad qorayda kadibna waxa waaye saas license ama shati lagu siiyay inaad MRI technology tahay ama technician. sidoo kale haddaad Mareykanka joogto dhimaankiisu aad u waalan yahay college badanana laga bartaa. haddaad rabtiin commentiga ula soo wadaaga linkiyadooda kuwaas Mareykanka laga bartana waa idinla soo share garay doonaa. sidoo kale college waxa yaala Edmonton ku yaalo laga bartaa jirto oo 2 sano diplomada asagana laga barto. midka Toronto ku yaala labaas waa idin kula share garay doonaa. hadda waa soo fiiriyay waan arkay kuwa Mareykankana haddaad maaragtay aad commentiyada ku soo qortiin dad badan ay soo request gareen waa idin la share garay doonaa iyagana. waa runtii career aad u fiican macnaa oo meel walba laga raadayo almost hadda qof oo jira oo license haysta MRI technician oo shaqo waayay hadda Canada ma inuu jiro uma malaynayo intaan wada dhalinyarada aan aqaano ayaga kala doortaan isbitaal walba raadaya hataa waxaan aqaanaa dhalinyaro gobolka kale laga soo codsaday lacag dad ku soo guuri lahaydana laydin siiha kan iyo waxaad iyo halta benefit waxaas oo dhan si ay u guuraan. marka waa la soo wadaagi karaa waxyaalo kale oo caafimaadka la xiriiro oo la barto. waxaan isku dayahay in badan laga soo codsado waxyaalaha 2 sano iyo 3 sano iyo 4 sano iyo lagu baran karo oo maaragtay hadda Canada laga barto iyo Mareykanka labadaas wadan waxbarashada aad isugu dhowdahay. marka fideoga halkaas aan kusoo gabagabeeyaa research karaya marka haddaad maaragtay wadanka ku cusubtaa ama aad awal hore u joogtay Canada oo aad isdahayda maxaa caafimaad la xiriiro oo waqti kooban oo aad barataa fiiri MRI technician-ka fiiri meeshaas waxaa ka jirta opportunity ka jirta student loan ana bixiyo oo haddii income-kaagu uu yar yahay sida caadiga ah student loan gobolada Canada looga qaato markii la galayo waa program qualify waa inaad student loan ku qaadato. see you soon videogan xiga.